الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته waxaynu soo aragnay qisadii aynu hore u soo qaadanay qaa'idka xun ama hogaamiyaha xun ama siyaasiga xun iyo calaamadihiisa fircoon baa tusaale u ahaa caawana waxaynu qaadanaynaa siyaasiga wanaagsan iyo tilmaamihiisa ama hogaamiyaha fiican sifaatu lqaa'id saalix qaa'idka wanaagsan tilmaamihiisa nebiyullaahi sulaymaan baa tusaale u ah calayhi الsalaam oo qur-aanku wuxuu ka warramaa niman boqor ahaa liita oo laga dheeraanayo dhaqankoodii iyo niman boqor ahaa oo wanaagsan oo dhaqankoodii la raacayo oo tusaale uu yahay nebi sulaymaan iyo dulqarnayn sifaadka fircoon soo aragnee kuwa cagsigood buu leeyahy nebi sulaymaan hadduu fircoon dadka qaybinayo si uu xukumo nebiyullaahi sulaymaan wuu ururinayaa si uu xukumo jinka iyo insiga iyo xayawaanada waxoo dhan way midaysayn iyagoo cadaalad lagu hogaaminayo iyo sharciga u yaala marka sifada ugu horeysa waxa weeye qofkan inuu baadi doono ummad urursan oo calal xaqa ku urursan inuu baadi doono waa taa arkaysa loo soo ururiyey loo soo tubay dad wada danaynaya oo wada jecel oo kala dhawaysanaya فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك dabacsanaan iyo jilaac bay dadku kugu soo urureen baa ilaahay nebi maxamed haddii kale waa lagaa kala yaacina sifaadka qofka qaa'idka saalixa ah ee wanaagsan waxa weeye hadduu alku fircoon aniga ka lahaa nebiyullaahi sulaymaan fadliga iyo awooddaba ilaahay buu celinaya haadaa min fadli rabbi liyabluwanii ashkuru am akfur waxaanaan helay waa fadli ilaahay buu leeyahy ina haadaa lahuwa alfadlu lmubiin kani waa dheeraad weyn qaala rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calay wuu ducaysanayaa ilaahw deeqada aadi siisay ilaahay waafaji shukrigeeda markaa ma qiranayo isagu awooduu leeyahay ee fadliga iyo nicmada iyo awoodda intaba ilaahay buu celinaya qaa'idka wanaagsan dhaqankiisu ilaahay baa sidaa inoo yeelay ilaahay baa ina waafajiyey in shaa allahu arrimaha kale waxaasaa ku badan kan kalena waanu yeeli iyo waanu yaali iyo waanu ka shaqayn iyo waanu liqi iyo waanu ka damsiin baa dhaqankiisu yahay qaa'idka saalixa ah ee wanaagsan sifadiisu waxa weeye innahu qariibu min annaas dadkiisu u dhow yahay dadkiisa godobka muu geline waxay dareemayaan inuu u shaqaynayo oo u adeegayo maslaxaddooda ay ku jirto iyana way ku dhow yihiin isna wuu ku dhow yahay bal u fiirso ninka ummaddaa dhan hogaaminaya shimbir buu tebayaa eeg watafaqada طayr faqaala maa liya laa ara alhudhuda am kaana min alghaa'ibiin xabad shimbira balka war waxaa soo ummadaa oo isdhex socda ninka soo helay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam isagoo dagaalkii tabuuk 30 kun oo ciidana hogaaminaya ayaa markii yurub la gaadhay ayaa wuxuu leeyay wararta ninkii abudalxe mee cafwa ninkii kacbu bnu maalik mee kacb bnu maalik ma hayo mar kalena nin soo socda ui kun abaa khaythama isna maqnaaye isaga laftiisii noqo bal ka waran marka taa waxaa keenaya u dhowaanshaha uu qofku dadka u dhow yahay hadduu isaguna janno yar ku nool yihiin iyaguna diiqadii iyo cadaab ay ku nool yihiin ay kala caalam bay yihiin muxuu garanba dee kuwooda u waaweyn iyo acyaantooda maa yacrif huwa fii caalam wannaasu fii caalam haani marka waa inuu qofka qaa'idka ahi dadka ku dhow yahay waxaana keena inuu ka firdhado kalsooni darradu ka qabo iyo meeshuu xoogga ku haysto iyo baqaha uu isleeyahay way ku dili taasaa inta badan firdhiya oo inuu meel isku soo xidho keena laakiin markay dadku dugsanayaan ay jecel yihiin ay ku soo ururayaan waa qariib min annaas qaa'idka wanaagsan sifadiisu waxa weeyaan dowladdiisu waa dowlad diineed weeye dowladdiisu diinta u adeegaysa dunya uma noola taana wuxuu ku rabeeyey nebi sulaymaan shacabkiisa iyo cidda uu xukumaya xataa shimbir waa shimbirkii hududka ayaa markuu qoladii reer soo booqday waxa uu leeyahy an laa yasjuduu lilaahi aladii yukhriju اlkhab'a fi الsamaawaati wاlard war wuxuu xumaa dadka sanamka caabudaya maxay ahay maxay ilaahay ugu sujuudi waayeen waa shimbirkii ilaa uu tababaray oo caynkaa leh nebi sulaymaanna markuu qoladaa fariinta u diray boqoradiisaba waxa uu leeyahay
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أنو قال كبرويس وين يوم بهنية إذنكم مسلمين عليا وركب أنت سكولي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال كبرو ما بهنية إذنكم إسلامك عليا حق الدنبنا وحاوري ارجع إليهم بهديتهم ورد هدية الدولة على أنه هنون بانو الله صعناه وندتك لدونينا هدية مرة بنه marka dawladda qaa'idka wanaagsan dawladdiisu diin baa hogaamiso waa dawlad diineed kan kalena diin la'aan baa asal u ah qaa'idka kale diinta iska turkiyaan diinta nuqsaan u arkaan diinta ka fogaadaan waaba inta la isku haystaba caalamka dawladaha caalamka waa loo ogol yahay haddaanay diin islaam hogaaminayn diin markaan leena waa diinta islaamka waraditu lakum alislaam diin qisadu mixwarkay ku wareegaysaa waa malikatu saba ama boqoradii reer saba markay aragtay inuu hadiyad diiday oo wax kale aanu aqbalayniyo maslaxaatoona wayse soo dhiibtay ugu dambeyntiiba waxay leedahay wa aslamtu ma'a sulaymaana lillahi rabbil alamin waxaan hoggaansamay ilaahay baan u hoggaansamay anigoo sulaymaan la siman oo la soconaya maanta waxay aragtay wax kale inaanu shaqeynay ilaa inay hanuunta mooyaan sifada afraad qaa'idka wanaagsan waxa weeye mid cilmiga dugsada iyo aqoonyahanka iyo culimada qaa'idka liitaana wuxuu isleeyahay ceebtaada ay fashilin iyo jahligaaga iyo xumaantooda oo dadka aqoonyahanku la dagaalamaa cilmigu qiimo kama leh agtiis cilmi diineed iyo mid maadi labadaba qisada waxyaabaha ay xambaarsan tahay hanuunka ka soo hadana cilmiga aad uga muuqanaya وعلمنا منطق الطير قال الذي عنده علم من الكتاب وأوتينا العلم من قبلها ereyga cilmi baa soo noqonaya cilmiga cisi kula agtiisa iyo helkiisa cilmigaas ruuxu tanaafus u sameeyo dadku ay ku tartamayaan bahalkii yaa soo qaadaya arshigii halka yaalay kii cilmiga lahaaba wuxuu leeyahay asmullah al-a'zamka yaqaanay ana soo qaaday ifriid baa tartan ka qayb galaya halka yaa dhisaya yacmaluuna lahu ma yashaa min maharib wa tamathila wa jifan kal jawab wa tartankiya ismi mimaariga ninkan isaga ah hududka la yiraahdo ama shimbirkaas ciqaabu mutaysanaya wuu iska tagay laakiin cilmi baa lagu cafiyay cilmi uu soo kordhiyay macluumaad uu dawladda islaamka u keenay ayaa lagu cafiyay oo la yiraahdo cilmigaas aad keentay hadaa waa lagu cafiyay ahatu bima lam tuhid bihi buu law yaqaana luqadu kula hadlaya Sulaymaan uu ogiyay in la ciqaabay markaas wuxuu war aanad hayniya macluumaad baan hayaa ma sidaas aad haysaa hadaa waa lagu saamaxayba marka dad aragto ummad hogaamin ah oo la dagaalanta aqooyahanka mid diineed iyo mid dunyada waxay tilmaamaysaa dictatornimo iyo jahli iyo sifaxun oo dhaqankii fircoon weey aniga aqaana aniga idhi ana idin sheegaya diin iyo dunyaba aqooyahanka liita ama siyaasiga liita uu ka fatwooda oo isaga muftika cid waxba uma oga ma aqaana ma yiraahdo idan marka shanta sifo ayaa ah kuwa baariska ah qisada markaan eegaga aad inooga muuqanaya waxa tusaale weyn ugu sugan yahay dadka hogaaminta ummadda galaya inay qisaska quraanka akhriyaan oo wixii lagu liibaanayna ay raacaan wixii lagu lugoayna ay iska ilaaliyaan اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك